السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii dowladda goboleedka Galmudug, dowladda federaalka ah iyo dowladda Jarmalka ee maxaan ku raraa mashruucan ka saaciday Soomaaliya ee maalgelisay hay'adda KfW oo awal GTZ in la dhihi jiraan jecelahay laakiin hadda magacii laga bedelay ama waxay tahayba dowladda Jarmalka iyo dadka Jarmalka deeqdan siiyay dadka Soomaaliyeed ayaan u mahad celinaynaa kuwa kale oo balan oo dugsiyo farsamo aan ballan qaaday maanta Soomaaliya waxbarashada nooca waxbarasho ugu baahi badan tahay waa aqoonta farsamada waan garanaynaa guryaha dhisayno wadooyinka aan dhisayno waxa aan waxaynana in badan oo kamid ah dad farsamo yaqaana oo ajnabi ah oo ama dalalka dariska ka yimiday ama meelo ka sii fog ka yimiday ayaa noo jooga runtii in wiilal Soomaaliyeed oo hawshaas nooga filnaado mustaqbalka dhow dalkuna hadda ka bacda ayuu u sii baahanayaa dadka farsamo yaqaanada ah ee maxaan ku raadayay aqoonta technology-ga casriga ah leh aniga baahda waxbarashada guud ahaan waa taan dhihi jiray weligay hawl aan waxbarasho aan kama soo shaqeyn siyaasadda ka hor ganacsi yar yar wax bari waa iska galgalay waxbarashada aan ka shaqeyn jiray burburkii ka hor waxay ahayd waxbarashada farsamada dugsiga sare farsamada gacantaan ka baxay jaamacaddii macallimiinta farsamadan ka baxay ka bacdina tacliinta farsamada technical education ayaan master's degree ku sameeyay meeshaasaan daba taagnaa curriculum development center ka technical and vocational education ka ayaan madax ka soo noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed marka jaamacaddan wax badan wax ka soo dhigay dhammaan sidii dalka uu heli lahaa waxaan marka meeshaan taariikhda inaan ka sheekeeyo waagii hore kacaanka ka hor iyo berihii hore ee kacaanka intaba dugsiyada farsamada waxaa aadi jiray dadka fasalka 8aad ee primary education-ka markay dhammeeyaan darajooyinka hoose ku baasa ayaa la geey jiray oo la dhihi jiray yani intellectual ama maskaxdooda waxoogaa yar way gaabisaa marka gacmaha iyo murqaha gacanaha wax ka bartaan gacanka siyaasaddaas oo bedelay dadkaasi dad badan oo kamid ah waxbarashada qaarkoodna ma dhameystira karin hadday soo dhameystirtaanna qaarkood farsamo yaqaana fiican kama soo bixi jirin gacanka uu bedelay wuxuu dhahay dugsiga dhexe ardada ugu fiican ayaa dugsiyada farsamada aadaysa hadda waa kuwa ugu fiican dugsiga sare ee farsamada gacanta ee xamar 30 arday ayaa la qaadanayay fasalka koobaad ee dugsiga sare dadka inta ugu darajo sareysa bas ayaa ku tartami kartaa la yiri alla soo tartamo boqolkiiba 92 iyo 90 iyo xoogaa yaan aniga marka la isku soo daro aggregate-kayga dugsiga sare dugsiga dhexe ee grade 8-ki yaan ku baasay 30 arday la qaadanayay 30 arday horta waa ka mid noqon waayay inta iga darajo sareysa qaadatay reserve number 1 waxaa la qaatay 15 arday oo reserve ah oo 30kaas arday la qaatay hadii qaar la waayo 2 usbuuc kadib dhowr arday ka noqotay ka baxday saasaan ku galnay anoo boqolkiiba 90 iyo jarjar dugsiga sare uga soo baxay waxay gaartay ardayda dugsigaas farsamada dhigataay code-ka overall-ka ama muxuu ahaayay dharka lagu shaqeeyo ee madow in lagu faano suuqa in lagu maro qofku inuu ku faano meeshii dugsiga sare shaati cad iyo surwaal kaaki ay lagu dhigan jiray dugsiga farsamada overall-ka yani la gashto oo lagu shaqeeyo karambiyool ma la yiraahdo la dhihi jiray yani in lagu faano ardayga asoo iska bixi karo oo dharkiisa dugsi sare oo ahayd shaati cad iyo surwaal kaaki la qaadanayay laakiin de isku kuga joogtid shaati cad ma haysan kartid waxa la gashanayay gaboodkaas kaas marka in lagu soo baxo oo magaalada lagu maro si ardaygaana dugsiga sare farsamada u dhigtaa yaa waxay noqotay haybad yani dheeri ah oo lagu faano marka garaasada markay dhamaadaan iskoolka laga soo baxa annagoo wadana muxuu ahay gaboodkan magaalada soo dhex mari jirin marka meeshaasaa laga keenay meeshaasaa la soo gaarsiiyey maanta marka wixii oo dhan way naga burbureen hal sabab oo ugu weyn oo markii tacliinta ay soo noqonaysay farsamada inta badan weliba farsamada engineering-ka
farsamada annaga waagii macadka simad aan bilownay waxaan dhahnay 2 sano oo diblooma oo farsamo yaqaan maamul ah ayaan soo saarayna waa farsamo yaqaan laakiin waa farsamo yaqaan maamul xisaabiye maxaan ku yiraahday qof ku takhasusay marketingka salesmanshipka maxaan ku raayay oo waxa sidee dadka waaweyn PhD iyo masterkaas aan ka shaqay karin dhalinyaro ka shaqaysan soo saarnay shirkadihii markaas jiraan aad iyo aad ay u qaateen khaasatan xisaabiyaashii iyo dadkii noocaas ah waxaan marka noocaas u sameeyay waxay ahayd farsamada engineeringka ee hadda aan soo aragnay mechanical electrical carpenter civil dhammaan marka la isku soo daro aad ay qaali u tahay waxay qaali u tahay inkastoo hadda technology-ga casriga ah oo fududeeyo wax badan oo simulators iyo waxyaabo badan oo in alwaaxi in la jaro ama birti in la jaro ama aan looga maarmo laga hadana oo yareyn karaayo ma ka maarmi karo lianna practical experience loo baahan yahay computerka guri ku dhismaayo gaarina ku sameyn maayo oo ku sahlaya sidaas daraadeed qofka inuu markuu practice sameynayo carpenter hadduu baranayo inuu alwaax jarjara alwaaxi maanta la jarjaray biri ardayga imaanay wax lagu bari karo waa in alwaax cusub haddana la soo iibiyaa oo la jaraa birti waa la jaraya wayarkii waa la fiiqaya waa la isku xiraya waa la waxaynaya sibirka shamiintadii waa la qasayaa bulkeetigii waa la dhisayaa derbiga marka waxaas oo dhan marka waxay leeyihiin qarashaad budget aan caadi ahayn ayay u baahan yihiin sidaas daraadeed waagii dambe aniga aan madaxda ka ahay midaynta tacliinta farsamada ee Soomaaliya xarunteeda oo ugu horeysay dhismaha curriculum dugsiyo sare farsamo oo 3 sano dugsiyo sare farsamo oo 4 sano yaan qabi jirnay isku shahaadayna qaadi jirnay ninka 3 sano ah ninka 4 sano ah marka hal midayaa la yiri 36 dugsi farsamo ayaa jamhuuriyadda ku yeelay oo aan isku curriculum ahayn laakiin dhammaan engineering bas baahan caafimaad ay lahaayeen wasaarad kasta ay dugsiga yar oo farsamo ay samaysatay oo kaalmo caalamiin ay ku samaysatay marka wixii dawladda gacanka ahayd markii dambe in la mideeyo hal curriculum loo yeelo ayadoo curriculumkaas la dhaqan gelinayo manhajkaas dawladuna kaalmeynaysa la kaalmaysan la yiraahdo ayaan sameynay curriculumka mugaan dhamaystirnay ayada oo wasiirka tacliinta inuu saxiixo oo baarlamaanka la geeyo oo laga ansixiyo sugaya ayaa burburkii dhacay daah badanaa jiray wasiirka tacliinta xafiiskiisa wuxuu iska tiilay sanad iyo jarjar oo saxiixiisa uu sugayay marka dhibaatadaas yartaa meesha marka waxaan ka wadaa taariikhdaas u sheegayaa dugsiyada farsamo muhiimadda ay leeyihiin iyo inay maxaan ku raadaaye qarash u baahan yihiin oo aanan nin farsamo yaqaan ah ama gabar farsamo yaqaan oo fiican inaanan ku soo bixaynin si sahlan dugsi sare caadi ah oo xagga ku yaala ardayga ka soo baxa oo kale inaanay ahayn waaye waxaan taariikhdaas u soo qaaday waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo dowladda federaalka ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda galmudug iyo maamulka maxaa ku raadaaye gaalkacyo intaba ka qayb qaatay maanta mashruucan quruxda badan ee aan arkayna ee qalabaysan sahlidiisii dowladda Jarmalka weligeed waa nala jecleed oo hadda ka hor dugsiga sare farsamada Jarmalka waa tii naloo dhisay dugsiga sare Burco ee farsamada ahay ayaga dhiseen sidaas ay weligood tacliinta farsamada nooga saacidi jireen laakiin duruufo ay nagu saacidaana la waayay sidaas ay u gaabsadeen maanta alxamdulillah duruufana nagu saacidaan leenahay warbixintii hadda muxuu ahay injineerka waxa ku jirtay halkan dugsigaan oo la dhameystiro dugsi kale oo wasaaradda beeraha iyo sidoo kale la iska kaashado oo degmada Hirshabeelle laga hirgeliyo mid kale oo maxaan ku radaa Koonfur Galbeed laga hirgelinayo mid kale oo Jubbaland laga hirgelinayo dhammaan dowlad goboleedyada Puntland sidoo kale dhammaan dowlad goboleedyada dugsiyada farsamada Jarmalku inuu naga saaciidi karo laakiin waxaa la rabaa si naloo saacido inaan u naalo oo dad la saacidi karo aanu egnahay ama dhaqankeeda aan la nimaado haddaan sideenna waxyaaba qaarkood dhaqanka noo ahay isqabqabsiga miiranahay ardayda la qaadanayana meeshaasaan rabaa ardayda ugu fiican in la qaato si farsamo yaqaan fiican uu soo baxo
هديك الفرسميان أنا وحبق قبل جماعة لا كجوية وحياة سمي من اللي يرادا أما قبر اللي يرادا صوب حياة هديك وإن أرضي ذا وفي عن الدكس السرقة بحضر ساسا جعلها دكس واجاس دكس قد حالة داعي وحبرشة الوايرات باهيد الوابن هذا نقول باهيد ويبدن لكن أرضي إنه ويبدن marka dugsiga sare dadka baxal la qaadan doonaa kuwa ugu fiican in la qaato 4.5 aan lagu qaadanin qaraabo waaye iga meelay cungaan iga geey meesha inaan lagu qaadanin laakiin dadka ugu fiican ugu aqoonta fiican ugu nadiifsan in la qaato si aan u helno farsamo yaqaan fiican oo waxa uu ku magacaaban yahay qaban karo waa makaanika dilira baabuurtu sameyn karo waa makaanika dilira بريه محوى مطاردي سمينتودي إيو آد أنك واجهنا مشينا آد وين أي أقول لجري لك هذا مشينه محمد هذا تكنولوجيا عصرية أو يرير أو أنت وركاء efficiency بدنا يرلو ومركا هو شاسي وهول آد في عد مركا لان هم بلايني دوكسيجا تفيد technical and vocational education training وكولج ومقع آد في عد بس وحنا ربنا ماشي بروفيسور عدو الويري بروفيسور إبراهيم عدو إني عدو يدوا بديه مركا وعدو جه إلى السويدين أو بروفيسور إبراهيم عدو ليراد أو محاكور هذا وزير كأني تعليم الله ونحرس نين آديات قالوا أو لما كان خوارج تاعي عدو جاي سبب النقدين لمشري ستيس يعتمد وهاي مركا مجا عيسى سبوحة إن لجهر مريوار ربنا وإلى قمان تاي سير لو قرطو قفك اللوجو مجا درماشان قفك أي تاي سير لو ود أوجان قفك إن بروفيسور إبراهيم عدو اللوجو مجا در أوجادنا وحنا مرينا إنه الله إله حشاء ده هي يو هاي محلو بحينا نديه الدورين مركا خير كاس إن بدأ صار رجينا مركا هم بليو قول أيا ورجينا كولج كادي على رأدي هذا وما سنتين